waxaan ku maqnaa sida ka warhayseen qaadan ururintii wadooyinka aan ka wadnay UK dalka UK baan ka waday qaadan ururintii wadooyinka wadada Cergaabo ugu dheer tahay sidoo kale waxaan personally u tagay jaamacada wax ka dhiganayay marka jaamacadeena alxamdulillah way soo dhamaatay wadooyinkana waa laga yaabaa inta badan dadku inay kala socdeen wadada Cergaabo qaadan ururintii aan uga sameynay London dadka reer London ama reer UK guud ahaan baa waxay ku qaabileen dareen aad u fiican waxay nagu qaabileen dareen farxad iyo khayrayn iyo wadaniyadii ku dheehan tahay waxaanay habeenkii u horeeyay ogolaadeen ama ballan qaadeen lacag 157 oo Guinea iyo waliba 300 oo qolo ganacsato ay ballan qaaday oo dollar waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in gobolada marka loo gudbana sidii nooga muuqatay dareenkooda ay noogu ballan qaadeen noogu yeedheen in inta in ku dhow laga keeno gobolada waxaan kaga imid hawshii nooca ahayd guddigii wadooyinka ay la shaqeynaysay oo ay wasiiradii ugu horeeyeen wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiir dawladii waxa weeye maaliyadda iyo xubnihii kale guddiga oo markay dhameeyaan UK goboladeeda u sii gudbi doona insha Allah taala ku gudbi doona dal kale jaarka Europe Scandinavia especially u gudbi doona oo soo wada mari doona insha Allah taala wixii suurtagal ah ay suurta gasho inay tagaan marka wadooyinka sida ka warhaysaan marar badan la sheegay waa halbowl waxaan u baahanahay inaynu jidadka samaysano oo isku xidhanno suurtagal ma aha dalku inuu horumar hadaan lahayn infrastructure waxa loo yaqaan oo kaabayaashii dhaqaalaha oo ay koob ka tahay wadooyinku sidoo kale madaarada la inooga imanayo la inooga soo gelin dekada aynu wax kala soo degayna wax ka dhoofinayno noloshu saalix ma aha oo suurtagal ma aha in dalku horumar hadaan infrastructure lahayn marka sidaa darteed wadooyinka ay dawladdu bilowday oo ah siyaasadii madaxweynaha oo ay tahay laga wado dalkoo dhan laga wado meelo badan runtii dadaal badan laga sameeyay wax dawladdu bilowday iyo wax bulshadu is abaabushay oo ay soo abaabushay inay wax weeye wax qabsadaan dawladduna ay isku xirtay inay wax la qabato wadaasna waa wadada halbowlaha waxaanu u baahan yahay dalkeenu inaynu dhamaanteen inaynan isbarbareerin oo isku masayrin oo dhan wax weeye heblaaya la sameeyay hebel baa la sameeyay kii la sameeyaba waa dalkii kii wax laga qabtaaba waa dalkii baahiyuhuna way yani priority ama muhiimaduna waa kala leeyihiin ma aha meesha priority gale goboladii dalka ee lixda aha waa gobolka kaliya aan laamigu tagin laamigu ku xidhnay marka laga tago booran oo markii hore tigtiin laakiin hadda dhamaystirmay lixdii gobol yani inay isku xidhmaan 23 degmo way inoo dhiman yihiin degmo walba in lagu soo xidho goboladii si network iyo wadooyinku isugu xidhmo